bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkeena maanta waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wadatashiga qaran iyo kulamo xalay dhacay oo la isku fahmi waayay waxaan eegi doonaa qodobada weli ay dooda adag ka taagan tahay iyo sida madaxda ay ugu heshiin karaan maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo Generaal Saadaq John oo xalay kulan saacado badan socday ku dhex maray madaxtooyada xog arintan ku saabsan ayaan idin hayaa iyo sidoo kale waxaad warkana ku daawan doontaan madaxweyne Farmaajo oo amarkii ugu cuslaa dul dhigay lacagta Imaaraadka Carabta ee taala bangiga dhexe kadib talaabo ismiidaamin ah oo uu qaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena haddaad nagu cusub tahay subscribe sar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu rabto waan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale laagarey muuqaalka si uu dad badan u gaaro waa Sabti 8 January sanadka 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta qodobadaasi markale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay kulan saacado badan qaatay ku yeeshay magaalada Muqdisho ayadoo aan weli wax heshiis ah lagu gaarin kulankaasi qoraal uu soo saaray afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa lagu yiri waxaa soo gabagaboobay kulankii ay Muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran ee looga arinsanayo doorashooyinka kaasi oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shirku uu sii socon doonaa insha Allah waxaana la filayaa inuu ka soo baxo gunaanadka warmurtiyeed rasmi ah oo quseeya arrimaha doorashooyinka sida hufnaanta doorashada waqtiyeenta iyo amniga sidaan xogta ku helnay waxaa weli la isku marilayahay arrinta amniga ayada oo Roble uu doonayo in warmurtiyeedka ka soo baxaya shirka lagu daro in amniga guud ee dalka isaga lagu wareejiyo haddii kale aanay dhici karin doorasho hufan xitaa haddii shirka sidaasi isku raaco madaxweyne Farmaajo ayaan marnaba ogolaan doonin inuu amniga wareejiyo balse waxaa jirta dood ah in sidaasi ay beesha caalamka ku qasbi karto haddii golaha wadatashiga qaran ay isku raacaan si kastaba madaxweyne goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Laftagareen ayaa weli diidan arrintan ayaga oo ku dooday in amniga dalka uu ka baxsan yahay arrimaha doorashada waxay sidoo kale sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu horay amniga doorashada ugu wareejiyay Roble shirka ayaa la filayaa in mar kale uu maanta dib u bilowdo ase yeeshee waxaa jirta cabsi ah in shirka uu burburi karo ama aysan ka soo bixi doonin qodobo la taaban karo oo wax ka bedelaya xaaladda cakiran ee doorashada dalka waa hagaaga qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan markana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Generaal Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ayaa xalay ku kulmay xarunta madaxtooyada 8 bilood kadib markii uu madaxweyne Farmaajo ka xayuubiyay generaalka dhammaan darajooyinkii ciidan sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa inoo sheegay in kulanka uu yimid kadib codsi ka yimid Generaal Saadaq John oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho qof kale oo Saadaq John ka agdhow ayaa inoo xaqiijiyay in uu jiro kulanka labada mas'uul sarkaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Saadaq John uu daba socdo kulan shalay dhexmaray taliyihii hore ee hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kulankaasi oo ka dhacay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dhexmara Fahad Yaasiin iyo Generaal Saadaq John wixii ka dambeeyay markii Saadaq John xilka laga qaaday bishii Abriil sanadkii hore Saadaq ayaa xilligaasi ku sheegay muuqaal lagu baahiyay warbaahinta gudaha in uu hakiyay kulan ay yeelan lahaayeen golaha shacabka kaasi oo looga doodayay arrimaha doorashooyinka dalka isaga oo faray xildhibaanada inay dib ugu noqdaan deegaan doorashooyinkooda Saadaq John ayaa markaasi ahaa taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir iyadoo shaqadii laga eriyay wax yar kadib hadalkiisa maalmo kadibna madaxweyne Farmaajo ayaa ka xayuubiyay dhammaan darajooyinka ciidan ee Generaal Saadaq John kulanka dhexmaray Saadaq John Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay inuu ahaa iscafis waxaana kulanka dhinacyadan dhexmaray fududeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo laga soo doortay Jubbaland kana mid ah ragga ugu dhow xafiiska madaxweyne Farmaajo Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan Saadaq John oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor ayaa ah murashax u taagan kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa haddaba waa kuma Saadaq John
saadaq john oo magaciisa saddexan yahay saadaq cumar xasan ayaa ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee dhaca Itoobiya. saadaq ayaana la sheegaa in uu horaantii 1993 uu u soo wareegay magaalada Muqdisho isaga oo markii dambana 2012 uga sii gudbay dalka Kenya kadibna dalka Koonfur Afrika halkaasi oo uu ka sii aaday London waxaana uu dalka dib ugu soo laabtay sanadkii 2014 markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin taliyaha NISA ee Galmudug sida oo kalena sanadkii 2017 ayaa loo magacaabay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir. taliyihii hore ee hay'adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo ay soo wada shaqeeyeen muddo dheer saadaq john ayaa ku qeexay inuu yahay nin howlkar ah oo shaqadiisa sida ugu haboon uga soo baxa. saadaq john ayaa lagu bedelay taliyihii ciidanka Haramcad Farxaan Qaroole oo hadda ah taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar dul dhigay lacagta Imaaraadka Carabta ee taala bangiga dhexe xilli saacado ka hor ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Roble uu Imaaraadka u balan qaaday in loo celinayo lacag lagu qabtay Muqdisho sanadkii 2018. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in lacagtani ay dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hanaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagaha taasi oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalka sida ku xusan qoraalka ay madaxtooyada soo saartay. waxaa mamnuuc ah in go'aan uu hal mas'uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hanaan waafaqsan shuruucda dalka ayuu intaasi raaciyay. qoraalka Farmaajo ayaa soo baxay kadib markii Roble uu Imaaraadka Carabta ka raaligeliyay dhacdadii ay ciidamada amniga ee dawladda kula wareegeen lacag ka timid Imaaraadka oo laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde. Roble ayaa Imaaraadka Carabta u balan qaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dawladda dib loogu celin doono sida ugu dhaqsiyaha badan. dawladda Soomaaliya ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2018 waxay garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qabatay lacag ku dhow $10 milyan oo ay 8 diyaarad ka timid Imaaraadka Carabta. lacagtaasi oo safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay ku sheegtay in loogu talagalay mushaarka ciidamadii Soomaaliya ee ay Imaaraadku tababari jirtay. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi lacagta uga shakisay in loo waday dhinacyada dawladda ka soo horjeeda ee mucaaradka. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Caasimada TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena ee nabadgelyo.